Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo Soomaaliya ka soo noqday ra'iisul wasaarihii muddadii u dhaxaysay November 2007 ilaa Febraayo 2009 ayaa 1 Abriil ee sanadkan 2020 wuxuu isbitaal ku yaal magaalada London ee dalka Ingiriiska ugu geeriyooday cudurka Covid-19. Nuur Cadde wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho 2 Febraayo 1938 waxaa lagu xasuustaa kaalintii uu ka qaatay shirweynihii dib u heshiisiinta Jabuuti ee sanadkii 2009 ee lagu dhisay dowladii wadaaga ahayd ee uu qaybta ka ahaa isbahaysigii dib u xoreynta ee fadhigeedu ahaa magaalada Casmara ee dalka Eritrea. Maxamuud Ismaaciil Xuseen Xudaydi wuxuu ahaa abwaan, heesaa, laxameyste caan ku ahaa kabanka waxaanu ku mutaystay magaca boqorkii cuudka. wuxuu 8 Abriil 2020 sanadkaasi dhamaanaya cudurka Covid-19 uu geeriyooday isbitaal ku yaal magaalada London oo in muddo uu ku jiray. Xudaydi wuxuu ku dhashay magaalada Berbera 15 Abriil 1928 waxaana la aasay 15 Abriil 2020 oo ahayd maalintii uu dhashay. Xudaydi ka sokow kabanka uu caanka ku noqday heesaha uu qaaday iyo kuwa uu alifay waxa kale oo lagu xasuustaa sidii uu suugaanta ugu dhiirigelin jiray halgankii xornimo-doonka ee ummadda Soomaaliyeed. waxa kale oo uu gacan siiyay xornimo-doonkii Jabuuti. Cabduqaadir Maxamed Faarax Biriq wuxuu ahaa ciyaartooy caan ka ah Soomaaliya kuna ciyaari jiray naadigii Batroolka ka hor inta aanu u soo guurin Ingiriiska uu soo galay 1992. Biriq wuxuu ku dhashay magaalada Beledweyne sanadkii 1961 wuxuu ahaa laacibiintii gobolka Hiiraan u matali jiray ciyaaraha gobolada. Biriq wuxuu inta badan ka ciyaari jiray garabka midig isagoo isku dabooli jiray lambarada 7, 8 ilaa 11. wuxuu ka mid ahaa ciyaartooydii kalsoonida badan lagu qabay oo u soo ciyaaray xulka qaranka Soomaaliyeed. in muddo ah Biriq wuxuu laanta afka Soomaaliga ee BBC-da kala qayb gali jiray barnaamijyada falanqeynta ciyaaraha sida tabinta tooska. waxa kale oo ku lahaa meherad ganacsi xaafadda Hellsden ee degmada Brent ee waqooyi galbeed ee magaalada London. wuxuu ahaa shakhsi aad ugu dhex muuqday bulshada Soomaaliyeed ee London oo xubin firfircoon ka ahaa. Injineer Baana Cabdalla Cali wuxuu ahaa mid ka mid ah xidigihii kubadda kolayga Soomaaliya isla markaana udub dhexaad u ahaa dib u soo nooleynta kubadda kolayga Soomaaliya. wuxuu ahaa madaxa xiriirka dibadda iyo suuqeynta xiriirka kubadda kolayga Soomaaliya. waxa kale oo xubin ka ahaa xiriirka ciyaaraha basketball-ka Afrika. Baana Cabdalla marka laga soo tago kubadda kolayga wuxuu xubin firfircoon ka ahaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK. wuxuu cudurka Covid-19 ugu geeriyooday London 28 Abriil. Baana Cali oo shahaadada injineeriyiinta ka qaatay jaamacad ku taala London ayaa sidoo kale u shaqeyn jiray waaxda gaadiidka London gaar ahaan qaybta tareenada. wariyihii rugcadaaga Cabduqaadir Maxamed Mursal 31 Sebtembar ayuu cudurka Covid-19 ugu geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Minneapolis siday warbaahintu u xaqiijisay gabadhiisa. allaha u naxariistay Cabduqaadir Maxamed Mursal wuxuu sanadkii 1953 ku dhashay magaalada Muqdisho halkaas oo inta badan waxbarashadiisii noloshiisa ku soo qaatay. Cabduqaadir Maxamed Mursal muddo ka badan 40 sano ayuu ku soo dhex jiray warbaahinta. wuxuu ahaa farshaxanayste, qoraa, riwaayad sameeye iyo farsamo yaqaan raadiyaha. wuxuu ka soo shaqeeyay wargeyskii Xidigta Oktoobar isagoo qoraal ku qori jiray. waxa kadib loo qaatay farshaxanayste hibo leh isagoo sawir gacmeedyo ku dabiici jiray wargeyska sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadkii ay isla soo shaqeeyeen. wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay bilaa sawir gacmeedya kuna daabaca wargeys isagoo xaaladda uu dalka ku jira hadba ku muujin jiray. wuxuu soo noqday madaxii raadiyo Muqdisho. waxa lagu xasuustaa inuu raadiyaha isbedel weyn ku sameeyay. wuxuu ku soo kordhiyay tafsiirka Qur'aanka Kariimka iyo aadaanka salaada oo ka bixi jiray raadiyaha. waxa kale uu soo saari jiray wargeyskii dalka. wuxuu ka shaqeeyay oo xilal ka soo qabtay raadiyo Iqra, Volunteer FM, raadiyihii Iran
iyo wakaalada wararka ee bini'aadanimada u qaabilsaneed qaramada midoobay ee raadiyaha arrimaha bini'aadanimada Ergo. Sanadkii 2014 uu u wareegay dalka Mareykanka, wuxuu halkaasi ka aasay idaacadda Kali codka Soomaalida Mareykanka oo markii ugu dambeysay madax ka ahaa Mursal. Wuxuu ka tagay 2 xaas iyo 11 caruur ah kuwaasi oo haatan ku nool dalka Mareykanka. Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeer ayaa 8 Oktoobar ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Mas'uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in Cali uu u dhintay fayraska corona. Kaas yeeshee ehelada marxuumka ayaa codsaday in dib loo baaro waxa geeridiisa sababay. Professor Galeer wuxuu ku dhashay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool 15 bishii Oktoobar ee sanadkii 1941 halkaas uu ku soo qaatay qaybihii hore ee noloshiisa, dhalinyaranimo iyo waxbarashadiisa aasaasiga. Cali Khaliif wuxuu door weyn ka soo ciyaaray siyaasadda Soomaaliya 10 sano ee la soo dhaafay. Dhowr sano kadib markii ay Soomaaliya xorriyadda qaadatay ayuu si weyn ugu soo dhex muuqday saaxadda siyaasadeed. 1980 ilaa 1982 wuxuu soo ahaa wasiirkii warshadaha ee dowladii kacaanka oo madaxweyne ka ahaa Allaha u naxariistay Maxamed Siyaad Barre. ka hor inta aan loo magacaabin xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sanadkii 2000 wuxuu noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaankii lagu yaqleelay shirki Carta. 13 bilood markii ay dhisneed xukuumadii ra'iisul wasaaraha ka ahaa xildhibaanada baarlamaanka xilligaasi ayaa kala noqday codka kalsoonida. 20 bishii Agoosto sanadkii 2012 Cali Khaliif wuxuu kamid ahaa xildhibaanadii loo doortay baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ilaa haatan kamid ahaa geeridiisa ka hor. sanadkii 2014 Cali Khaliif Galeer waxaa loo doortay madaxweynaha maamulkii la magac baxay Khaatuma ee gobolada Sool iyo Sanaag. doorasho dhacday bishii Agoosto sanadkaasi ayuu ku guuleystay Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel oo ahaa musharax kula tartamay xilka madaxweyne Khaatuma. in muddo ayuu u ololeynayay in maamulkiisa aqoonsi uu helo dowladihii tan iyo xilligaasi soo maray Soomaaliya haas yeeshee umuusan suurtagelin. waxaa 13 bishii Diseembar sanadkani sii dhamaanaya 2020 dalka Jarmalka ku geeriyooday fanaanka caanka ahaa Cabdi Cali Bacalwaan oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanay halkaas. wararka qaar ayaa sheegayay in fanaanka uu qabay xanuunada neef mareenka ku dhaca isla markaana u biirsaday xanuunka safmarka ee COVID-19. Cabdi Cali Bacalwaan ayaa kamid ahaa tiirarkii kooxda qaranka ee Hobalada Waabari. mar uu wareysi siinayay mid kamid warbaahinta sanadkii hore ayaa wuxuu yiri qaran dumay qalfoofkiisa ka haray inaan ahay ayaan dareemayaa markaan soo xasuusta heerkii uu fanku gaaray. Bacalwaan mar uu wareysi siinayay mid kamid warbaahinta Soomaalida wuxuu sheegay inuu fanka soo galay sanadkii 1965 isagoo kaalinta koowaad ka galay tartan faneed lagu qabtay magaalada Muqdisho. wuxuu ku biiray kooxdii xooga dalka isagoo markii dambe kamid noqday Hobalada Waabari oo safka hore kaga jirtay fanka Soomaalida.